السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كحرن جنال كي مريم ويل وكسو دوادا ما جنال كا كو عصب وكسو بيري وسو دوينينا كو هاد كدي بسوس هذا نسيد كله كو جوجنا وحان ربنا أيجينا لين هاي محل هذا دعوش ونكسن ندير قلية وكفرحة وحان سمينين إن شاء الله هدي وح ونكسن هدي أي سنة هين وح ونكسن وحان ربنا أيجينا ينقى قبتان حمان تهدي أن الله ما سميننا إلهي نفتينا محل هذا إيو نفتك لو من عندك وإلهي هكا شيدانك الحمد لله waxaan rabaa maanta inaan bilaabo casharka dhalinyarada aan u bilaabayo iyo haweenka dhalinyarada iyo haweenka kalama marno run ahaantii dadka ugu badan wadankana waa ayaga dadka oo maxaa la yiraahdaa dhibaatada ugu badan ku dhacdana waa ayaga dadka saameynta ku yeeshay wixii dhaceen dhibaatooyinkii hore u dhaceen iyo hadda socdo iyagayna barwan u yihiin dhalinyaro wadankiin waxaan rabaa inaad ku kalsoonaataan oo aad samaysataan wax la yiraahdo sida hadda dhalinyarada ay samaystaan shaqo abuur oo kale waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa aan taxanan ka dhigeynaa ishak aan sameey doonaa waxyaabo ay dhalinyarada qaban karaan iyo waxyaabo oo haweenka ay sameyn karaan isma saarna shaqooyinka way isku jiraan muhiimadda waxa ah inta wadanka ka tagtid adigoo wadan kale u socdo haddana in maxaa la yiraahdaa dhibaato ku sii gaarto hadii aad ku dhimato oo rafaad kale sii gaartid aad la kulanto hadhow haddana maxaa la yiraahdaa ay sheeg waxay noqonaysaa qalbi jab kale marka adigoo wadankaaga joogo ayaa kaaga muhiimsan inaa wadan kale ah ku dhiman lahayd adigoon hadafkaaga gaarin horta wixii qoran lama gafo alxamdulillah dhalinyarada wixii dhintay ilaaha u naxariisto waalidiintooduna ka tacsiinayna ruuxaantii wixii dhacay iyaga ilaahay samir iimaan ha ka siiyo laakiin waxaan idinka rabnaa dhalinyaro inaan wax isu falno aan wax isu fiirino oo aan gadaal wax u eegno sidii wadankeena aan nabad kaga dhigan lahayn sidii aan horumarkiisa aan uga shaqeyn lahayn sidii aan shaqooyinka yaryar aan ku qabsan lahayn dhalinyartu way badan yihiin ciidanka waa dhalinyaro dadka oo hadda ciidanka oo nabad ka shaqeynaya waa dhalinyaro kuwa bajaajyada wada waa dhalinyaro kuwa maxaa la yiraahdaa ay sheeg meelaha qaar oo ganacsi yar sameeyo kuwa ganacsi waaweyn sameeynooyo kulligood dhalinyaro ay soo jiraan marka waxaan rabaa annaga inaan isyeesin oo iskaashano oo aan wax qabsano oo qofka u dhow dhiirigeliyo sidaasna waxay ku imaanaysaa wacyigelin marka maanta laga bilaabo wacyigelinta sameyshaan idinka soo sameyn doonaa wixii maxaa la yiraahdaa ay sheeg macquul gal ah markaas waxaa socdaan fiiri shaqooyinka socdaan shaqooyinka maxay yihiin talo shaqooyinka wax waaye muhiim ahan adiga inaad dawlad u shaqeysid ina qasab ma ina hay'ad u shaqeysid shaqooyin kale ka badan oo kana muhiimsan aan qaban kartid haddii aad weysid meena shaqada ina qayb ka noqotid shaqaalaha dawladda ama ina qayb ka noqotid shaqaalaha hay'adeed aad nasiibkaaga ku weysid waxaa jiro shaqooyin kale aad qaban kartid dhalinyaradu way isugu jiraan mar qaar wax bartay iyo qaar aan wax baranin waayo qaarka wax bartay oo wadanka joogo oo shaqo la'aanta hayso shaqo abuur way samaysan karaan muhiim ahaan inaad shaqo fiican oo weyn ah heshid wax wal meel yar laga bilaabo soomahan marka maanta waxaan bilaabeynaa kan daafur waaye waxaan daafureynaa casharkii oo dhalinyarada wacyigelin lahaa maalmaha soo socdo waxaan u maleynaa isbuucis laba mar ama la ka soo hadli doonaa arrintaas waxaan ka dhigaynaa wax tahana ah meena maalin walba dhalinyarada lagu dhiirigeliyo waqti walba aan ka soo hadlo iyo haweenka dhalinyarada haweenka aan ku dhiirigelinayno inay shaqeystaan oo wax qabsadaan oo wadankooda number 1 ku kalsoonaadaan wadanka hadda waxa haystaan ku kalsooneen guul ma ka gaaraysid saas darteed waxaan rabaa inaan wadanka ku kalsoonaataan waana mahadsantiin channelka la ku cusubtahay subscribe saar haddii aad maxaa la hore u joogtay ma fiirso